in deegaanka oromada ay howlgal noocan ay ku qaado bal howlgalkan iyo sida uu u socdo iyo goobaha uu ka socdo haddii aad nala wadaagto iyo waxa weeye dagaaladani qaabka u socdaan horta dagaaladan ka soo cusboonaaday deegaankan oromada waa kuwo sansaankooda maalmihii ugu dambeysayba la dareemayay oo aad gulufkooda u socday wuxuu u egyahay oo u qaab egyahay dagaalkii lagu qaaday gobolka Tigreega Abiy Ahmed waxaad moodaa inuu labaad dagaalkii Tigreega markii soo rogal celiyay qolyahan hadii uu ka soo jeesaday inuu hadana iska sifaynayaad moodaa jabhadan oromada oo iyadu xoog xawaara sare ku socotay intii muddo ahayd ba gobollo fara badan oo deegaankaasi oromada aan ka dagaalamaysa markii hore buday iyo olbay u ahaayeen oromada oo Addis Ababa meena ku soconin marka kansha loo helay deme balaayo kale oo Addis Ababa ku socotaa la hortaagna marka iyagu Addis Ababa kuma soconin xukunkana Abiy Ahmed kuma haysan sideedabana jabhadan oromada waxay inta badan u dagaalantay ay sheegteen u dagaalamayso waxa weeye madax banaani iyadoo Itoobiya ugu badan maamuli karta ra'iisul wasaare ka iyo hadana madax banaani si raadiya marka iyagu Addis Ababa kuma soconin dadkooda inay abaabushaan gobolkooda ay gacanta ku dhigaan taageerada dadkooda ay helaan intaasay muhiimadoodu ahayd ciidamo fara badan ay maalin walba ay tababaraan oo ay soo xareeyaan marka jabhadani oromadu buday iyo olbay ahayd oo wuxuu yiri Abiy Ahmed balan ka soo jeesado dhankan iyo TPLF hadda waxa bilowday guluf ballaaran oo ay dawladda dhexe garwadeen ka tahay oo ciidamo fara badan deegaamada kala duwan lagaga soo aruuriyay waxa kamid ah ciidamadaasi deegaanada laga soo aruuriyay deegaanka Soomaalida oo ciidanka liyo booliska ee deegaanka Soomaalida wuxuu hadda ka howlgalayaa 6 maalmood ee la soo dhaafayna uu ka howlgalayay deegaanka oromada oo dagaal adag kula jireen jabhadani waanu imanayna meelaha isku farasaareen iyo khasaaraha dhanka Soomaalida ciidankan deegaanka Soomaalida soo gaaray howlgalkan waxa si guud ka qayb qaadanaya deegaanka Amxaarada deegaanka Soomaalida deegaanka Sidaamo oo hadda ku soo biiray iyo ciidankii dawladda dhexe ee dalka Itoobiya intaas oo la isku daray nageyle aan ilaahdo ma mooyaale magaalada xuduudda Kenya iyo Itoobiya ku taala oo dhankan oramadana qayb ay leedahay dhankan Soomaaliduna ay qayb leeyihiin waxa ka howlgalayay shalay iyo daraadba diyaaradihii droonka ahaa ee cayrsaday kooxda TPLF marka waxa loo isticmaalayaa oola haddana duqeymo waxay ka geysanayaan deegaamo mooyaaladan hoostaga oo ay dawladdu maamulayso aysan nimankan kale ee oramadu aysan kuba sugnayn magaalo ay dawladdu maamulayso diyaaradii duqeynayaan miyay ku khaldameen mise way ka noqotay way kala garan waayeen mooyi duqeymahaas ka socda dagaaladaas ka socda meelaha ay dagaaladu sida tooska hadda uga socdaan waxa kamid ah nageyle oo markii hore deegaanka Soomaalida ka tirsanaan jirtay laakiin deegaanka Oromadu xilliga Cabdiile la siiyay oo qaatay waxa kale oo kamid ah meelaha ay dagaalada adag ka socdaan deegaanka gobolka lagu magacaabo Shawa Waleega Harar meelo hoos yimaada iyo sidoo kale gobolka Baali marka ciidanka Soomaalidu 6 maalmood ka hor sida la sheegay ay u gudbeen dad xoogaal oo deegaanka Soomaalida ku sugan oo aynu wareysanay sida inoo sheegeen ay u gudbeen gudaha deegaanka Oromada oo dagaaladan ilaa 6 maalmood bay ku jireen marka halkee bay sida gaarka waa goobtee halka ay sida gaarka ciidamada ay u dagaalamayaan meelo kala duwan baa la geeyay nageylaha waa la geeyay oo ay ka dagaalamayaan deegaan lagu magacaabo Hodaat oo isla deegaankaasi Oromada gudaheeda ciidanka Soomaalidu way galeen markii hore maqaab khiyaana loo wax isu daba mareen lama yaqaano laakiin gudaha deegaankaasi Hodaat markii ay galeen meel ay ka soo baxaan waa loo diiday meel walba jidgooyaa loo dhigay 6 maalmood bay ka dagaalamayaan ilaa maalinkii la geeyay iyo maanta way ka dagaalamayaan meel ay ka soo baxaan iyo meel ay u martana waa la leeyahay marka dagaal culus oo sidii hore lagu yaqaanay iyo dhoolatuskii jabhada Oromada ee kolba meel gaariya la isku soo sawiray iyo wixii ka baxsan oo xitaa ay diyaaradaha dagaalku drone-kii TPLF lagu jabiyay ay ka qayb qaadanayaan يا هرت الدجالة كقيب قاعدنا يا سعادك بين أصعدان ملها سكر الدون دجان كاس أورما كترسن قبل الله سكر الدون ينسيت وص صعدان عيدا كصومالي دونا وحللي هي ضد بدن يا كدنت أو دجان كان هدات يكون هالرئيسيين أد كان أوقات دجالة يا معلمها فرح بدن للشيء يا إنا أوقات دنتين حريرك الدون ولا لازم مزولين كترسن دجان كصومالي وحي الشيء إن أيسن جودها دجان كأورما aysan gelin ciidanka liyo boolisku laakiin
jabhadahaas iyo ciidankii deegaanka Oromada iyo kuwii militariga culaysyo badan oo ciidan la soo saaray xuduudda Oromada iyo Soomaalida sidaas daraadeedna deegaanka Soomaalidu ay ciidamo dheeraad ah u direen xuduudda Oromada iyo Soomaalida kala qaybisa laakiin waxa howlgal aysan qayb ka ahayn laakiin sheegashadaas dawladda deegaanka Soomaalida ka soo yeelaysa waxa burinaysa howlgalkan guud ee dawladdu ku dhawaaqday ee ciidanka sida deegaanka sidaamadu ay ku biireen ee ka amxaaradu ay ku biireen ee kii militarigu ay ku iyo diyaaradahan duqeymaha geysanaya yaad moodaa inay burinayaan waa tahay aad ma san tahay muddo ayuu socday hawl muxuu ahaa dagaalka jabhadan ay waday ee dawladda Itoobiya gaar ahaan deegaanka Oromada ay ka waday waxa loo arkay in ay tiraba hal ahaadaan laakiin tayada ay hooseyso oo aysan jirin meel badan oo ay gacanta ku dhigaan dawladana aysan khatar ku ahayn marka la barbar dhigo TPLF maxaa hadda ku soo beegay dawladdu in hawlgal noocan ay qaato طبعا دولته waxay iska sifeynaysaa khataraha ku hareeraysa Abiy Ahmed aqligiisa uu qaba hadii TPLF uu god ku hubsaday oo ay meel ku ururiyay oo khatartoodii uu iska dhimay sidii horena aysan ahayn in ta kale taagan oo iyadana iska soo xaliyo waa wax isaga u roon waana wax uu hadda ku talagalay sida muuqanaysa marka dawladdu xilligan waxa ku soo hagaajiyay inay howlgalkan qaado waxa weeye awoodda ciidan ee jabhadan Oromada oo soo kordhisay dagaaladii cuslaa iyo culaysyadii